maqashaan badankii qofkaas waa balaaya caashaq waa raiisul wasaaraha waddanka Jarmalka ka taliya iyo naagta Talyaaniga ka talisay biyahaanba maanta afkooda waxay ka sheegeen inaanay rabin inay ka mid noqdaan golaha hadda uu sameeyay Donald Trump ee lagu sheegay golaha nabadda sala socotaan golahan dawladuhu waxay bixinayaan lacag 1 bilyan marka ay ka qayb noqonayaan dawlado aad u tiro badan oo Carab ah ayaa isdiiwaan galiyay sidoo kale dawlado tiro badanna hadda ay ka mid noqonayaan laakiin labadan ayaa sheegay biyahaanba inaysan rabin inay ka mid noqdaan iska daaya xataa agtiisa ay maraan taasi run ahaantii labadan dhibaato weyn ayay u keenaysaa oo xagga dhaqaalaha sala socotaan Trump wuxuu biyahaanba uu bishan wixii ka dambeeya cashuurta qaali uga dhigi doonaa dawladaha reer Yurub oo dhan ama NATO kuwa isugu yimi xagga alaabaha Mareykanka marka ay soo gaari doonaan Yurub waxa uu sheegay cashuur 23% inuu saari doono taasoo ka dhigan in businessya badan biyahaanba lagu loo laabay hadaba iyadoo sidaa tahay oo xalal badan ay jiraan ayay biyahaanba hadaba labadan isku soo jeedinayaan Trump waxaanay u badan tahay Jarmalka biyahaanba xiriirka uu leeyahay Mareykanka inay biyahaanba u dhamaan doono sidoo kale Talyaaniga oo walba Mareykanka faa'iido ku qabay in biyahaanba ninkan uu naagtani ku daartay hadaba labadan baxar bay ku jiraan dawladii kale Yurub ayaa sidoo kale isku qalqaalay laakiin labada qura ee ninkan iyo naagtani